agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo State of Somalia mudane Maxamuud Sheekh Cumar oo maanta shir jaraa'id ku qabtay caasimadda maamulka Khaatumo ee Taleex ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah kuwaas oo ku saabsan guud ahaanba deegaamada maamulka Khaatumo oo uu sheegay maalmihii ugu dambeeyay in maamulada Faroole iyo Siilaanyo ka wadeen qorshayaal kuwaas oo ay ka mid yihiin xafiisyada ay leeyihiin xisbiyada siyaasadda Puntland oo laga furay magaalada Buuhoodle iyo ciyaartoy la sheegay in ay ka socdaan gobolka Cayn oo ka qayb galaya koobka Hargeysa iyadoo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo waxba kama jiraan ku tilmaamay waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaynu ka wareynaa oo si official looga warhayaa in lacag 1 milyan iyo 100,000 oo dollar madaxweyne Faroole uu weydiistay igaad inay ka bixiso si uu ugu qabto muxuu ahaa doorashooyin axsaabta badana deegaamada uu ugu talagalay ee qorshaha ka fulinayo waxa kamid ah deegaanka gobolka Cayn 30 goobood oo kamid ah wax doorasho ka dhacaysana ma aha wax la doonayo in lacagta lagu qaato sidaas darteed ayaa dad deegaanka u dhashay oo lacag kharashaad gaar ah la soo siiyay waxaan loo ballan qaaday in arday jaamacada loo geeyo wax noocaas ah yaa loo soo diray saasay qolo waliba intay shir qabato oo guri hoostii ku qabato ay uga sheegaysaa barnaamijka wax ka dhacayana ma jiraan wax doorasho oo ka jirtaan ma jiraan Puntland inteeda kale ka dhici maayaan marka arintaasi waa arin lagu doonayo lacagta 1 milyan iyo 100,000 igad lagaga doonayo maamulka Puntland hawsha imika waqti yar oo gaaban buu kaga faa'iideystay dad si tuuga deegaanka u soo gelayo guriyo gudahood ku shirayna weeye dad axsaab oo guriyo furanayo oo boor ku dhajisanayo oo muxuu ahaa ay u furan yihiin maaha nin waliba aqal uu leeyahay gudihii buu galay dad buu shir ugu qabtay boor yar uu ku sawiray dabadna waa ka fujiyay dibna waa u cararay marka wax ka jira oo wax ka suura galaya ma jiraan lacagtaas aan laga doonayo in laga helo igad wax kale oo ka jira ma jiraan wax doorasho ka dhacaysana ma jirto Puntland inta kale Garowe iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo Qardho iyo midna wax kama jiraan iyadii baaba waa meesha xaaladda maraysa la wada ogyahay marka wax ka jira ma jiraan ciyaartoyda waxa ka horeysa goorma la nabtay oo ka horeysatay goorma la isu yimid dad badan baa ku dhintay kumaanku qof baa ku dhintay boqolaal qof baa ku agoomoobay intaas in laag baa asay ku qaaday inta in laag baa muxuu ahaa ku barakacday la isagama iman lagama wada hadlin isma weydiin dhulkii baa la haystaa laasxaanood baa ogtihiin xudin baa ogtihiin goobo badan baa la ogyahay waxa ka horeysa in la wada ciyaaro muxuu ahaa waxa ka horeysa in laga wada hadlo wax kan ama ay ka kacaan deegaanka kan ama arrimaha noocaas laakiin waxaan hadalka ku soo gaabanayaa waqtiga Khaatumo iyo Somaliland ay kubad wada ciyaaraan waqti dheer baa ka dhiman lama gaadhin xaalad gaadhay ma wax ka jirana ma dadkana waa dad ay ka ururiyeen qorlugud iyo burcaynta u dhaxaysa oo ciyaalkii qaadulayaasha ahaa iyo waxaan cadeynaynaa inaan deegaanka Buuhoodle iyo gobolka Cayn aan ka bixin wax ciyaartoy ah oo u socda Hargeysa kana bixi doonin oo aanay suuragalna ahayn inay taasi dhacdo waa wax laga yaani aan inaba suuragal ahayn isku soo wada duubo shirkan jaraa'id ayaa waxa uu xilli maalmihii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen xafiisyada xisbiyada siyaasadda Puntland deegaamada maamulka Khaatumo iyadoo sidoo kalena la sheegay ciyaartoy ka socota gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee deegaamada maamulka Khaatumo inay ka qayb galayaan koobka kubadda cagta ee maamulka Somaliland uga socda magaalada Hargeysa عبد القادر محمد عبد القادر شومبي تلفزيون كعالمي